بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan caawa u soo galay oo ka hadlaya dhowr qodob oo muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed in loo iftiimiyo qodobka koowaad waxa weeye safarkii uu maanta ku tagay shalayta ku tagay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tagay dalka Masar oo ahaa safar runtii khatar weyn xilli halis ah waliba ku soo beegmay waxaan u arkaa warmurtiyeedkii shirka ka soo baxay oo labadooduba akhriyeen xasan wuu ka gaabsaday inuu arrimihii laga hadlay uu faahfaahiyo laakiin madaxweynaha Masar baa si cad u faahfaahiyey waxaa loo tashanayay ee laga tashanayay inay yihiin biyo mareenka biyo xidhka Itoobiya iyo webiga iyo waxaan leeyahay badda cas istiraatiijiyadda badda cas arrimo military iyo arrimo siyaasadeed iyo arrimo dhaqaale intaba waa laga wada hadlay innaga dowladda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya marka ugu horeysa waxaa fiican in la qiimeeyo waxtarka uu u leeyahay shirkan Soomaaliya iyo waxyeelada uu keenayo in la qiimeeyo anigu waxaan aaminsanahay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sameeyay khalad la sameeyo kii ugu weynaa siyaasadda intuu Soomaaliya ku jiray maanta uu sameeyay khaladkaasna waxa weeye dowladda Itoobiya ciidamadeedii gudaha Soomaaliya ku jiraan ciidanka Itoobiya ee federaalka Itoobiya waxay ka mid yihiin AMISOM iyagoona AMISOM ahayna gudahay ku jiraan marka waxaa ii muuqata dowladda Itoobiya inay awood u leedahay inay faragelin ku samayso Soomaaliya laakiin Masar ayna awood u lahayn inay ka difaacdo Soomaaliya ciidamada Itoobiya sidaa daraaddeed xasan qaladka ugu weyn uu galay waxa weeye annaga siyaasadda Soomaaliya inay dhexdhexaad ahaato sidii awalba dhexdhexaad aan uga ahayn arrimaha Suudaan iyo Masar iyo Itoobiya haddana inay dhexdhexaad ka ahaato ayaa annaga dan noogu jirta qodobka labaad waxa weeye dhexdhexaadnimada ka sokow dowladda Masar intii dalkeenna uu dunsanaa sida Turkiga dowladda Turkiga ay noo garab istaagtay nooma garab istaagin soo wax faa'iido oo noogu jira dowladda Masar inaan danaheeda ka shaqeyno aan xaabo u noqono wax faa'iido noogu jira ma jiro because dowlad aan noo ogolayn noloshaba iyo jiritaankaba inoo ogolayn baan u arkaa aniga inay tahay hadday dowladdaasi inuun ilaa iyo 1990kii ilaa maalinkaa maanta la joogo inuun inta uu Turkigu sameeyey xitaa barhkeed hadday samayn lahayd waxba may ahaateen Itoobiya maanta waxaa loogu dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku dhawaaqay inuu dagaal siyaasadeed iyo mid military iyo mid dhaqaalaba la galay bangiga Itoobiya oo laga xidhay facilitieski Soomaaliya bangiga Masar oo loo furay oo aad maqlayseen dhaqaale ahaan siyaasaddii Masar oo la qaatay iyo tii dhexdhexaadnimada Itoobiya iyo Soomaaliya inay nabad ku wada noolaadaan oo laga tegay qodobka saddexaadna waxa weeye dowladda Soomaaliya awood ay ku istaagto maanta ma laha dhaqaale ma haysato military ma haysato awood siyaasadeed iskaga dhiciso dowladaha dariska ah Kenya iska dhicin weyda male dhul baa laynaga haystaa magaalooyinkeennii baa gudaha loogu jiraa maamul goboleedyadii Soomaaliya oo dhan baa Itoobiya ku xidhan asal ahaan ugu xidhan oo meesha laga aasaasay ay tahay madaxweynaha Soomaaliya qaladkii siyaasadeed ugu weynaa buu maanta galay annaga dan nooguma jirto dowladda Masar inay xaaba naga dhigato dan nooguma jirto dowladda Itoobiyana inaan nabad ku wada noolaanno oo laba walaalo oo darisa aan noqonno bay dani noogu jirtaa wax dana oo noogu jirto dowladda Masar xidhiidhkeeda iyo biyo xidheenkeeda iyo Itoobiya iyaga wax ka dhaxeeya annaga wax dana noogu jiraa ma jiraan qodobka labaad waxa weeye raba inaan ka hadlo oo muhiim ah very important ah waxa weeye dagaalkii ka dhacay Itoobiya gudaheeda ee gacanta la isula tagay ciidanka Itoobiya ee New Police iyo ciidamadii federaalka Itoobiya
iyo ay isqabsadeen ciidankii al-shabaab ay ku dagaalameen meesha dagaalkaasi wuxuu dhacay 5 cisho ka hor intaanu xasan sheekh meesha tegin siyaasadda markaa isku xidhiidhinta ah ee la isku xidhiidhinayo dowladda Soomaaliya kamay fakirin dagaalka markuu dhacay waxaa la rabay safarka inuu kansalo madaxweynaha Soomaaliya safarka inuu iska kansalo hadduuna kansalayn inuu ka hadlo inuusan waxaas raalli ku ahayn waxa meesha ka dhacayna aynan Soomaaliya shaqo ku lahayn arrintani waa arrin serious ah intaasoo kun oo nin baa dhintay oo gudaha Itoobiya ku dhintay hadda Itoobiya ciidankeeda xuduudka Soomaaliya jooga gudahay soo galayaan gobollada Soomaaliya oo dhan bay qabsanayaan waxaana sabab u noqonaya siyaasad xumada xasan sheekh iyo siyaasadii gudaheeda lagu galay lagu weeraray waana halka ay Soomaaliya isdhigtay dhowr bilood 2 bilood ka horna waxaa lagu wada noolaa maaragtay nabadgelyo iyo in aan la isbaragelinin siyaasad ahaan halkaa waxaa ka muuqata markaa siyaasaddii Soomaaliya inay fashilatay waxaan ku soo gabagabaynaya Soomaaliya dawladdu ma dhisna madaxweynuhu waa isagaa madaxweynaha oo ra'iisul wasaare ah oo wasiirkii dibadda ah wasiir arrimo dibadeed lama socdo caalamka madaxweynuhu markuu safrayo wasiiradiisa iyo xukuumad rasmi ah iyadoo jirtuu safraa wasiiradiisa u sii diyaariya cidda uu la kulmay qodobada laga hadlayo waxyaabaha laga hadlay waa la sii kariyaa wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya xilkii baa laga xayuubiyay waxaa wasiir arrimo dibadeed maanta Soomaaliya ka ah madaxweynaha Soomaaliya waxaa ra'iisul wasaare ka ah madaxweynaha Soomaaliya dawlad ma dhisna dalkii oo bilaa dawladda in khatarta intaa la eg aynu isgelin war waddanka hal nin ma talin karo dawladnimadu hal nin maaha daliisha xasan waa in loo sheegaa arrinkan hadduu isagu dhibsado kulligeen waxay noo tahay disaster dawladnimada Soomaaliya in la dhammaystiro oo talada waddanka laga wada tashado oo baarlamaanku tala yeesho oo madaxda dalka ragga mutacalimiinta ee ragga waaweyn ee waayaaraga ay taliyaan baa la rabaa maaha inuu hal nin taliyo waxaan ku soo gabagabaynaya war ummadda Soomaaliyeed war aamusnaanta joojiyo hadla waxa socda ka hadla dan nooguma jirto annaga dawladda Itoobiya iyo dawladda Soomaaliya inay dagaalamaan wax dan nooguma jiraan salaamu calaykum waraxmatullaahi